waxaa laga soo saaray god nin meyd ah oo lagu magacaabi jiray maxamed bashiir oo u dhashay dalka Itoobiya muddo 5 biloodna ku aasnaa goob ay ku wada noolaayeen isaga xaaskiisa iyo ilmo yar oo ay dhaleen isla markaana ku lahaa goob dharka lagu dhaqo dilkiisa ayaa waxa ka wada qayb qaatay sida la sheegay xaaskiisa oo lagu magacaabo Iftiin Maxamed Cismaan iyo laba nin oo lagu kala magacaabo Tamaam iyo Cabdishakuur oo dhamaantood u dhashay qowmiyadda Oromada ee dalka Itoobiya ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay dambiilayaashaasi waxaana goobta ku soo xoomay dad tiro badan oo la yaab iyo amakaag ay ku noqotay dhacdadan oo ah mid ku ogub magaalada Boosaaso saddexda qof oo ka mid tahay murwada marxuumka ayaa loo dhaadhiciyay saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso halkaas oo su'aalo lagu weydiiyay gaar ahaan ninka tooreyda ku jarjaray iyo xaaskiisa oo si naxariis darro u jarjaa wax laga weydiiyay sababta ku kaliftay inuu dilo marxuumka waxaana kan buyaani tumal leeyde malaaki yalla ana nado isayna habeen dharar waa idilaya lacagtida 3 milyan ay ugu leeyahay waa ididii lacagtana taasana il baan ku qaba haddana ididina waa isbuusanayay tiri jirteen bee kana jeesay jannaan burma u taalay mudalin baraku tadakaalan dil bay tiri waa dila iyada jirtay murwada marxuumka oo lagu magacaabo Iftiin Maxamed oo aan qeexin sababta ay goobjoog uga ahayd dilka ninkeeda ayaa iska fogaysay inay ku lug lahayd dilka marxuumka goobta uu ku aasnaa muddo 5 biloodna ay ku wada noolaayeen ninka dilay ninka ma yaa dilay taliyaha saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso oo ah halka ay ku xiran yihiin oo lagu magacaabo Saciid Cali Ibrahim ayaa Home Cable uga warbixiyay sida ay u heleen kiiska dilka ilaahay baa loo fududeeyay kiiskaas waxaan ku helay muddo aad u hadda baaristiisa kiiska ku daba jirnay ninka la jarjaray oo gurigii uu deganaa inta la googooyay lagu dhex aasay oo xaaskiisa xoogaa u ahayd kiiskaas adigu 3 eedaysane baan hadda u haynaa qaybtooda qiraal tahay qaybtaasna aan baaristiisa jirnay waan dhacdooyinka dib mucjisaadka dalka ka socda oo hadda waxa ilaahay baa noo fudeeyay kiiska dulmiga iyo masiibada ah ee dhacay inaan ku guuleysano gacantaana ku haynaa waxyaalaha kiiska ka dhimanaa baaristeedii gacantaan hadda ku haynaa marka 5 bilood ka hor ayaa ninka la dilay yiri marka qaabkii baaritaanka ku hesheen ma iyaga dad kamid ah ayaa soo sheegay xabta ku hesheen baaritaanka dheeraad oo dib ugu yimid informationka dadka heliyadiisa ama naga qayb qaatay ninkuna inuu maqan yahay hore baan ugu warhaynay ribadkiisa Ahmed Sham Home Cable TV Boosaaso